Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada koorsiga barashada maadada xisaabta. Kuna soo dhawaada casharka maanta oo ah casharka saddexaad. Casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa akhrinta tirooyinka 1000 ilaa 9999. Casharka markaan dhammayno, arday walba waxaa laga doonayaa in uu qori karo uuna akhrin karo tirooyinka u dhexeeya 1000 ilaa 9999. Casharkii hore waxaan ku soo baranay 100 ilaa 1000. Si la mid ah waxaan soo eegnay sida loo qoro 1001, 1002, 1003 ilaa 1100 ilaa 1200, 1300. Marka casharkaas wuu yara dheeraa, halkaas kuma soo koobi karin. Casharkan ayaan ku dhammayn doonaa insha Allah. Aan gudagalno casharkeena maanta. Marka hore waxaa laga maarmaan ah inaan isla eegno sidee loo qoraa 1000. 1000 waxaa loo qoraa 1 eber eber. Marka 1000ka wuxuu wataa 3 eber, laakiin godadkiisu waa 4 god. Marka 1000ka wuxuu ka kooban yahay 4 god sida 1 2 3 4. Haddii aan doonayo inaan qoro 2000, kaliya halka ayaan waxaan ku bedelayaa 2. waxaan leeyahay 2000. 3000 halka ayaan waxaan ku bedelayaa 3. waxaan leeyahay 3000. 4000 halka ayaan waxaan ku bedelayaa 4. waxay noqonaysaa 4000. 5000 halka ayaan waxaan ku bedelayaa 5. waxay noqonaysaa 5000. 6000 haddii aan doonayo inaan qoro, waxaan bedelayaa kaliya halka ayaan waxaan ku bedelayaa 6. waxay noqonaysaa 6000. 7000, 8000, 9000. 9000 waxaa ku xiga 10000. marka 10 ayaan qoraynaa, waxaan raacinaynaa 3 eber oo ah 1000. marka 3dan eber waxay noo muujinayaan in tiradan ay tahay tiro kumaad. Halkan waxaan aragnay marka sida loo qoro 1000 ilaa 10000. waxaan eegaynaa marka tirooyinka u dhexeeya 1000 ilaa 2000 sida 1001 ilaa 1999 sidee loo qoraa. Tirooyinka oo dhan waa isku mid. Tan ayaan isla eegi doonaa marka hore. Marka si aan u qorno 1001, waxaan soo aragnay 1000 sidan ayaa loo qoraa, wuxuu wataa 3 eber. marka 1001 si aan u qoro, eberkan u dambeeya ayaan waxaan ku bedelayaa 1. waxaan leeyahay waa 1001. 1002 si aan u qoro, halkan ayaan waxaan ku bedelayaa haddana 2. waxay noqonaysaa 1002. 1003 3 ayaan ku bedelayaa. 1004 4 ayaan ku bedelayaa. 1005 5 ayaan ku bedelayaa ilaa 1009. markaan gaaro marka aan qoro 1009 oo ah sidan, waxaan u gudbayaa 1010. 1010 waxaan bedelayaa haddana eberkan kale ayaan waxaan ku bedelayaa 1. kan wuxuu ahaanayaa 10. haddii aan doono inaan qoro 1011, waxaan leeyahay halkan ayaan waxaan ku qorayaa 1 iyo 1. waa 1011. marka waxaan leeyahay 1010 waxaan u qoraynaa sidan. 1010 ayaan leenahay waa 1010. 1020 halkan umbaan bedelayaa. 1030 halkan umbaan bedelayaa. 1040 halkan umbaan bedelayaa, aan ku bedelayaa 4. 1050 halkan umbaan bedelayaa ilaa 1099. marka 99 markaan qorayo 1099 sidan ayay noqonaysaa. markaan ka gudbo waxaan u gudbayaa 1100. 1100 marka halkan ayaa la soo gaaray, kan ayaan bedelaynaa haddana. waxaan leenahay 1100. marka 1100 sidan ayaan u qornay. aan eegno marka godadka waa isla 4tii god, wax isbedelay ma lahan. haddii aan xisaabno waa 1 2 3 4. kana 1 2 3 4, wax isbedelay ma lahan. marka 1100, 1200 waan garanaynaa, 1300 waan garanaynaa, 1400, 1900 waan qori karnaa. marka 1900 sidan ayaa loo qoraa. waxaan leenahay 1900. waxaan rabnaa inaan qorno 1999.
waxaan u qoraynaa sidan. Waxaan leenahay 1999 1999 waxaa ku xiga 2000. marka dhammaantood waa isku mid. haddii aan doonayo inaan qoro 2001 waxaan qorayaa 2 eber eber 1 waa 2001. 2030 haddii aan doonayo inaan qoro waa 2030 maadaama 30 ay tahay 2 god. labadii god ee u dambeysay 2000 ayaan ku bedelayaa 30. 2100 haddii aan doonayo inaan qoro sidan ayaan u qorayaa. 2840 haddii aan doonayo sidan ayaan u qorayaa. 2960 haddii aan doonayo sidan ayaan u qorayaa. 2999 marka 2999 waxaa ku xiga 3000. marka 3001 waan qori karnaa, 3002 waan qori karnaa, 3004 waan qori karnaa ilaa aad ka gaaraysid 3999 oo aan u gudubno 4000. 4999 waxaan u gudbaynaa 5000. 5999 waxaan u gudbaynaa 6000. 6999 waxaan u gudbaynaa 7000. 7999 waxaan u gudbaynaa 8999 waxaan u gudbaynaa 9000. 9999 waxaan u gudbaynaa 10000. halkan waxaan diri doonaa Layli. marka arday walbana waxaan rajaynayaa inuu soo qori doono si la mid ah uu ii soo akhrin doono. Layliga waa akhri tirooyinkan. marka waxaad ii akhrinaysaa tirooyinkan soo socda. lambarka koowaad waxaan ku qoray midan waan ku akhrin doonaa, tusaale ahaan ayaan kuu siin doonaa. tan haddii aan akhriyo, horta tirada aan eegno ma kunba mise waa 100. maadaama aan haysano 3 waxaan dhihi karnaa 3000 mise 300. marka si aan u ogaano mid ay tahay, godadka ka dambeeya aan eegno waa 1 2 3. waxaan ognahay marka 1000 in uu wato 3 god haddii laga reebo midka koowaad. marka waxay noqonaysaa waa 3000. tanna waa 462. marka waxaan leeyahay 3462. adiga ayaa laga doonayaa kuwan in aad soo qortid si la mid ah in aad soo akhrisid. waxaad sheegaysaa tan lambarka saddexaad, waxaad ii soo qoraysaa oo aad akhrinaysaa lambarkan. lambarka afaraad waxaad qoraysaa oo aad ii akhrinaysaa lambarka shanaad waxaad qoraysaa oo aad ii akhrinaysaa lambarka lixaad ee ugu dambeeya waxaad qoraysaa oo aad ii akhrinaysaa. marka adiga ayaa laga rabaa in aad soo qortid si la mid ah oo aad akhrisid. waxaan rajaynayaa in aad fahantay casharka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdikariim Xasan. la soco casharka xiga.